بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaasha halkan iga daawanaya magacayga waa Cabdiraxmaan Yuusuf Badheedha oday ka soo jeeda gobolka Saaxil astaantaydu haddii aan la yiraahdo musharaxnimo waa kubad haddii aan isaga keen waramo anigu waxaan ka soo jeedaa ku dhashay gobolka Saaxil dugsiga waxaan ka bilaabay Saaxil waxaan u soo wareegay Hargeysa iyadoo la yaqaanay duruufo ka jira gobolka Saaxil oo had iyo goor waalidiintu ubadkooda Hargeysa iyo Burco soo rari jireen saasan Hargeysa ku galay dugsiga Faarax Umar baan ka baxay 1978 waxaan haddana markiiba galay ganacsi reer ku lahaa berberaan shaqada dib uga bilaabay ilaa 88kii 78 markaan ka bilaabay ilaa 88kii halkaas oo aan hawlo badan haynay hawsha markaa ugu muhiimsaneedaan hayay waxa ka mid ahayd warshada sibidhka oo ganacsatadeedu saami ay ku lahayd oo afweyn bargiisiyaad bare shirkadii Lavage ay ku xidhay inaan saami ku yeelano oo markii dambe dawladda ka yabaasho la yiraahdo haddana sales ku qaadanaysan shirkadii ugu weyneed Hershey ee sibidhka berbere iibin jirtay baan lahaa oo manager ka ahaa ganacsataana lahayd afar shirkadood dalka la siiyay kontraaga shaqooyin badan oo kale way noo socdeen sidii baa dalka ku burbura lagu kala qaxay aakhirkii wax la soo warwareegaba dub haddana waxaan ugu noqday berbera 97 98 si bal ummadii iyo dalkaygii iyo gobolkii aan ka soo jeeday deganaanshiisii wixiisii horumarkiisa uga qayb qaato urur markaa weyn oo gaadiidleeyadoo raashinadii qaxoontigu bilaabeen Itoobiya loo rarayay Shiniile gaadiidkaan lahayn ururkaasaan tawfiiq baan hirgelintiisii aad uga qayb qaatay oo aan gudoomiye ku xigeen ka ahaa isla markiiba haddana waxa xisbigii udub baa la aasaasay madaxweynaheenii hore cigaal xogayihii guud buu ugu magacaabay markaan shirkii ka qayb galay ninkii gobolka ka furay baan ahaa xisbigii udub ee ka hirgeliyay ka bacdi haddana waxaan noqday mayor ku xigeenkii magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera laba sano markaan mayor ku xigeen ahaa haddana waxa igu darsamay 3 sanadood oo dambe oo aan barasaab ku xigeen ka ahaa halkaas 5 sanadood ayaan ku soo qaatay maamulka hogaaminta ummadayda experience badan oo aan leeyahay xagii ganacsiga iyo muddada dheer aan shaqaynayay iyo markii hadii dib loo noqdo dalku anagoo yar baan ganacsiga 20 jir baan markaan Faarax Umar ka baxay ganacsiga galay waxaan la soo kulmay halgankii aynu bilownay fowdadii wixii experience badan oo ku yeeshay iyo tan maamulka u dambeysay waxaan go'aansaday bal dalka inaan ka qayb qaato toosintiisa dejintiisa waxaad moodaa in aan dadku fahmin waxaan aynu soo halganay inaynu ku mitidno waxaad moodaa in loo yaqaano maamulkii iyo sharci dejintii laba dhufay isugu soo jira adduunkana haddaan la wada shaqaynin waxba ma hirgalaan marka anigu khuduurad aanu arkayo in aynu badbaadsano xukunkeena yar aynu dawladeennan aynu la soo noqonay ee aynu dhisnay ayaa horta iigu weyn inaan siyaasadda ku soo biiro taa waxa ii sii dheer gobolkaygii Saaxil oo aan u qabo inuu ka nasiib wanaagsan yahay gobolada kale oo maanta aynu ognahay waxyaalo badan infrastructure hore oo badan baa ka jiray imikana kii u badnaa dalka ayaa ka socda haddii aan markaa ummadii gobolka deganayd aanay la fahamsiin in ummadda qaranku waxan ay leeyihiin oo la leeyihiin iyaguna aanay khayraadka Ilaahay siiyay ka faa'iideysan dhibteeday leedahay marka waxyaalaha igu sii kalifay oo program aan berigi kala shaqeeyay iyada jiray oo Berbera corridor loo oran jiray de wax badan baad fahmaysaa dadku waa inay ogaadaan xitaa Itoobiya inay badda ka lahayn xagga international maritime looga oo khasab inagu tahay inay noo ogolaano in dekada ay wax kala soo degaan taas waxaan qabaa inaan Janiska baladaynta cibriga ka dhay uga faa'iideeyo gobolkayga waa gobol nasiib leh xeebun baynu naqaanaa waa gobol biyo potential waa gobol macdan leh waa gobol beeruhu kale biyo jiraan kalluunki likewise anigu hobigayga waxa kamida beeraha kale green kan jecelahay
beero badan baan dhulkaa ka sameeyey waxaan qabaa xeebtaa kulul iyo siigadiina waa la jirtay xeebtaba in green oo adduunkana way ka dhacday yamantan inoogu dhowo kale dee waad aragteen oo xeebta gebigeediiba maangaa lagu beeray marka horta ta aniga iminka ay kalifaysa waxa weeye war bal wixii aynu soo halgannay halgankii dee taariikh baan ku lahay rag iminka waa joogaan maxamed kaahin iyo raggii labadka ahaa intii dee raggii waaweynaanu wada shaqayn jirnay badi waa socdeen marka bal waxaynu ku soo tacabnay inaynu weelayno oo ilaashano ayaan muhiimadda u weyn waxaan markaa u sheegayaa taageerayaashayda gobolka saaxil amba meel kastay joogaanba cid kastay yihiin waa cabdiraxmaan yuusuf bareedha oo aad soo tijaabiseen gobolkaa saaxil oo kale dee 6 sannadood maamulkii sare idiin soo joogay ninka keliya isagoo meer ku-xigeen oo dhulkii xukumayay aan balood ku lahayn hal balood kuwiisii aad barre waqtigiisii aan lahaa oo lagu kala tago aanan ku qabsan cidna mooyaan hal balood haddii lasoo helo anaa beenaal ah oo samaystay 5 years naan xukumiyey waxaan idinka codsanayaa markaa taageerayaa dee oo idinkaa waa garan kartaan waxa ujeedadeeda himilooyinkayga cod baan idinka codsanayaa sidii aan u soo bixi lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu